إن سمرت ما قيب كان نقول دعاية أبابلون أو قبيليسن ما دام أورين سبورت سيهاي أو على الشقة كلهين فالدنبيادين النوعانة محكمة دو waxay ballan qaadaysaa haddii Cabdi Xafiid ku guul dareysto damaciisa iyo jaceylkiisa ku saabsan inuu hanta xabsi queen oo ay go'aan adag ka qaato ay laasho jaceylkiisa in maxkamaddu ay bixinayso qarashaad dhan $10,000 oo ku saabsan in Cabdi Xafiid gabadha uu rabo uu guursan karo lacagtaasna uu isticmaali karo arooskiisa lacagtaasina waxaa la siinayaa mar kasta uu caddeeyo inuu ka tanaasulay mowqifkiisii hore uuna diyaar u yahay maadaama nin sportso qarankan u baahan yahay uu yahay inuu reer yeesho lacagtaasina waxaa magaceeda la yidhahdaa sabarsiin looga sabarsiinayo damaciisii iyo jaceylkiisii dulgeeyey ku qasbay inuu yidhaahdo Queen Xabsaan jeclahay wilna uu ku adkaysanayo lawyer u soo qabsaday هلا سوق عبد الله يري دايرو وما سنتهاي هل مره محل كرا قلبا مانتي يا aniga gabadhana rabaa la gelin inaan siiyo si qaldana wax la igu soo diray barnaamijkeedana saan uma ogeen mar dambe oo telefoon badan soo galeen reer Nairobi ila soo hadleen kulli wax qaldan iyo waxa la igu yiri maxay tahay barnaamijyo kaleeto iyo hadda markaa maxkamadda dhageystay barnaamijkan iyo cadaaday gabadha afkeedana ay ku hadashay wajigeedana aan qiimeeyay aan arkaysay oo hadlayso waxa ogaaday waxyaabihii lii soo gudbiyeen waxba ka jirin marka xabsa sorry maadaama haday inta qol soo furta arintaada ka hadlay aan eri gabadhan qalad ay gashay wiil Soomaaliyeed qiyaantay marka karaali noqo labada qofna de waa wada soco karaan waana kala tagi karaan sorry arintaas ka leeyahay midda kale afka lawyerka ugu sareeya maxkamadda anoo ku hadlaayo kiiskan haday si qalad u soo dhacay dadkii qolkiga ila joogay dadka hadda gadaal ka imaadana waxaan leeyahay fariin qaldan waa la soo gudbi karaa qofkan wuu gudbi karaa don't worry adoo qaladkiis ka soo noqdo laakiin wax walba uga sumcad fiican marka excuse me dhamaantiin هذا فرد بهذا ما يدش حبس كوين marka u soo laabto kiiskaaga adiga xagaaga maxkamaddu waxay ku faraysaa faylkaaga marka dib loo fiiriyay waxa ka soo baxaya eedayn la xiriirta inaad rag badan jacayl la jishay weli ay ku jecel yihiin buuqaas ayaa meel walba ku yaala maxkamaddu waxay ku faraysaa jacaylkaaga inaad xakamayso you know that fiir deeq qodobada lagugu eedaynay waxaa weeye intaasoo fayl ayaa la hayaa oo wiil aad jacayl la jishay oo weli ku jecel arrintaasina waxay noqon kartaa dhisaysar ma fahmi daayir listen waxaa kuu sheegayaa anigoo daacad oo waxba samaynin kiis noocan camal hadduu public yahay hadduu private yahay liila imaanaa anigu wixii waa ka dhex baxaa ayaga still jacaylkiyaa ku jiro ma ka tegi kare maya kama tegi sababtoo ah وجبر دقيستي listen أنا وحبك سمينين وجبر دقيستي طاير دتكو قلبية ده هاي العشرة ما إلى شكرا دتكو قلبية ده دتكو والله ونحن كويسان يا قريقان لوير ما داير لكن دايرو لكن قبل الحرية اللي هذا صومان دايرو تاسع ساعة خطر دائما دتك محكمة دوس الرئان كذا أنا داير أنا هدي أن كاجد ويلك عبد الحفيظ وانين قارن دقيسو دقيستا داير أنا أنا وحكوا شيء جاي أنا ماذا أقانا هدي أكاجيست مكو سو جيسناي جعالة قدالكي ماضي جعالة أنت مري جعالة أنت كبحي ما أقاني مرة هدي أسفهم وينو خلاص دايرو مين مشاكل بي هرب السومر أنا مغلي صدايرو عبد الحفيظ وأويا وحنا اللي هي أنا نرش يدي وين بعض هل أرينا دايرو عبد الحفيظ هذا هو فهمه والله هذا الشيء صبر سيسان وبلن قاضي marka go'aan uu soo gaar asaan uga baahanahay waa buuxa gastiga Cabdullaahi gastiga waa buuxa lagu soo qaban kara gastiga yaa buuxa daahir ma maqlay Cabdi Xafiid waa wiil qaran waa sax Cabdi Xafiid asaga la rabay maanta xafso inay isku disho xafsa haday isbadbaadiday oo ay halkaas marayso Cabdi Xafiid asaga wiil sportista asaga nin dhalinyara
maanta nin ma ahan odaya nin le ma aha lacag layga dhacay nin dhihi kara ma aha qalbiga layga xaday gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalaa jecel magaaladiisa ha galo gabadha yarta ee mataqaana shafqabowga ah ee nolosheeda riixanaysa dhagax tuurka iyo is-ooyinta iyo mudaharaadka laga daba wado lagala fogaado intii u doodaysa cidoo afayeen ka soo dhiganaya ka soo dhigto anigu ma hortaagin laakiin waxaan leeyahay Cabdixafiid waa wiil qaran sax waaye asaga micnihi jacaylo gabdho badan oo jecel oo malaayiinaha aalada jooga kuwa ayaga jacaylaha la jisho tan waa tashatay doon way tagtay ogsoonow intaas aan leenahay qofka bini aadamka laba ka leefa karo war waxa la yiri sideeda xoolo ku diidan waa la cisho karaa laakiin dad ku diidan lama cili karo qof bini aadam oo ku rabin ma la qasbi karo gabadhaana laba joobi karo valowna nolosheedu kuma xirno fiyusna kuma xirno gabadhan waa gabar boqortooya oo deegaankeedii ku nool way أنا أدقون قصدي يا أبو حلو مسوقة بكرة إيشك معرتنا وجه حمسو horta ma hafso waxaan rabay inaan wax ka dhaho inaa horta waa la xaliya qaybta oo qabiilka maraysa rabay inaan ka hadlo mafahad واي dadka dhahooyaan yacni qabiil dartiisa u bahdiloosa wiilka iyo qabiilaysaan u samaysa haddii qabiil ku nacayso kowda maxay usoo dhaweysane Soomaalida ama waalan yihiin mas anagay rabaan inay nawaalaan qofkaan shalay soo dhaweysay ee magaaladeeda ugu imaaday waxay aheeday u quurtay inay video la samayso oo meel la soo istaagtay intaas oo sharafta ay siinaysay maanta haddii ay shukaansi isku fahmi waayeen ee kala tagaan miyo maanta qabiilku dhashay shalay sharafta ay sharfaysay ma maxay qabiil dartiis ugu tagi waysay u dhiwaysay wareewa kugu agbahdil maaye ani waan ka dhaqaaqay marka waxaan u arkay gabadha in qalad lagu haysto boqol qof inta isu shukaansadaan isfahmi waayaan oo kala cararaan haddii ay dooq iyo shukaansi isku fahmi waayeen maaha in qabiil oo qof bil aadan wuxuu dabiici u lahayn in kor laga saaro qalad baan u arkay ma fahmi واي intaas baan rabay inaan dhaho kulligiina waan salaamaya أيوة واي معاي تري أنا بقبيل كلا أقونين بو واي قفت قبيل متقال الله ولا سوت تجي ظاهرو هالمرة أنا محكمة كيسان هينا أو كيس كان حاجة فتوش دعوة كتا على محكمة ده كوسابسن ما دام مروت تاي أو تميم قوة إذا تميم لقوة يعني كان راعي كيس كاس فتوش على الواحد تا وين أكتا يا حمسان كيس كاس وين أكتا صوم حمسان أكتا يس وحا أوين معهم بني شكاس يقدع خردع هذا ما يعني كيس كي قال يدمي أوكي ظاهرو udgoon gabadha ku qornayd loo yarata